الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت كذب قدومك شرفت لقدوميها قدومك حقلنا سنة الرضا يحل لنا ضمان الدنيا لولا أقل شرفت بدل المسؤولين تكسعوا قلاش أما قدير دستورك مرتي شرفك للصحافة ضمان السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بوجودنا وركا لي لها هريبا يوري وانت فكرك انت تري اللقبه انا سوكوبا وقت ركبا يسا وعرا marka wareyso hambalyo iyo bogaadin inaa u soo gudbiyo gudoonka sharafta leh sida habsamida ah oo ku wado iyo xasiloonida ah oo runtii waafaqsan xeeroosaadka baarlamaanka labadiisa qalba ayaan soo dhaweynayaa. tan kale waxaan rabaa hambalyo iyo bogaadin inaa u soo gudbiyo guddiga dastuurka guddiyada ka shaqaynaya dastuurka dhamaystirkiisa guddiyada dastuurka oo labada gole iyo ka madaxa bannaanba iyo dhammaan inta ay kaashadeen oo muxuu ahayto ka shaqaynaya wax ka beddelka howlaha socday ee dastuurka. tan kale waxaan rabaa hambalyo iyo bogaadin inaan u soo gudbiyo dimuqraadiyadda ka jirta baarlamaankayna oo runtii u dhiganta kuwa adduunka sida kan ingiriiska iyo kuwa maraykanka isaas oo kale oo muxuu ahayto runtii muxuu ahayto ragga walaalaheena ama mas-uuliyiinta yacni runtii wacdiyada ay muujin karayaan si dimuqraadi ah, taasna ay socoto hawshana ay socoto ayagana ay muujinayaan shucuurtooda. tan kale anoo soo koobay waxaan rabaa in waxaan u xil saarannahay haddaan nahay xildhibaanadeena labada gole waxaan mas-uuliyadda nafuusho ama ugu horreysa waxay ahayd ama u dhaarannayba waxay ahayd ka shaqaynta dastuurka wax ka beddelkiisa iyo dhammaystirkiisa. maanta hawsha socotana waa hawshaas oo runtii loo dhaqaaqay oo intaa soo socotay ilaa baarlamaanka islaaleed. waxaan jeclaan lahaa walaalahay xildhibaanada kolleegayaashayda sida horeba loo sheegay inay runtii ayagoo yacni muujinaya shucuurtooda ay ku muujiyaan awoodda codka ay leeyihiin iyo muxuu ahayta xasaanadda ay leeyihiin ay ku gudbin karayaan fikir kasta ay qabaan ay ku wajahaan arrintan maanta loo joogo ee dastuurka. waxaan u soo qaadanayaa misaal waxaan u soo qaadanayaa maxaa yeele horta lacagtaan qaadanayna mishaarkaan qaadanayna waxaan u qaadanaynaa inaan ka shaqayno howlaha ku wajahan sida dastuurka oo kale iyo waxyaabaha kale ee shuruucda ku wajahan. haddii aan yacni taas aanu fulin waxaan qaadanayna lacagtaan qaadanayna baatil ay noqonaysaa, xaqna ma noqonayso. taas waxaan rabaa inaad ku sheegno. midda kale ugu dambaysa waxaan rabaa mudane guddoomiye arrinta dastuurka yacni waxaa misaal u soo qaadanayaa aayadii hore laga doodayay waa tii la keenay wax ka beddelka marka lagu hadlaayey qodobadii dastuurka ee 49aad 50aad iyo 54aad. waa ognahay markii la keenay doodii lasoo dhexdhigay waxaa yacni runtii fikirkii laga dhiibtay oo saanoo kale looga dhiibtay ayaa wax ka bedelay markii madaxweynaha iyo muxuu ahayto samatabicinta saarkeenna waxaa saldhig u ahaa fikirkii inta ka anbaxo yacni laga bedelay oo saanoo kale maanta looga jeediyey. taasaa idinkana wax ku bedeli karaysaa waana soo dhaweynayaa inay wax ka bedelmi doonaan muxuu ahayto waa rajaynaya. waxaan rabaa marka ugu dambayntii mudane guddoomiye anoo ku dheeraaday inaan soo dhaweynayo oon taageerayno oo rabno weliba inaan si yacni runtii fikirkeennii oo mirihiisii loo soo noqday inaan taageerno wax ka beddelka kooban ee ku saabsan
qodobada 49aad kontonaad iyo 51aad ee cutubka afaraad ee dastuurka oo maanta runtii wax weyn ah maxaa yeelay waa fikirkeennii oo gabmay waa fikirkeennii runtii jidkii loo baahna maray taas waxaan soo dhaweynayaa waxaan rajaynayaa inay la soo dhaweeyeen walaalahayga hadda hortayda jooga ugu dambeyntii qodobada kale ee dastuurka ee dhiman uu soo xiraayo ugu dambeyntii qodobada hartayda waxaan rabaa saas oo kale inaan anigoo ka doodnay oo fikirkeennii gelinay inaan wax ka bedel haddii loo baahday wax ka bedel aad iyo aad boogada mar kale hambalyo bogaadin wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu